kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ku nool magaalada Nairobi dhalinyaro mas'uuliyiin ka socotay safaaradda Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka wariyaasha qurba joogta Soomaaliyeed ee Kenya ku nool oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano SAJAS Somali Excited Journalists Association waxaana looga hadlayay tacadiyadii loo geystay saxaafadda sanadkii dhamaaday 2011 iyo rajada sanadka cusub ee 2012 waana kulan sanadle ah oo sanad kasta ay soo qaban qaabiyaan ururka wariyaasha qurba joogta Soomaaliyeed. waxaa hadallo qiiro badan ka soo jeediyay kulankan qaar ka mid ah saxafiyiintii ka soo qayb galay iyagoo si gaar ah dhammaantood tacsi ugu diray dhammaan wariyaashii xaqdarrada lagu dilay sanadkii dhamaaday ee 2011 gaar ahaan dilkii maalmo ka hor lagu geystay magaalada Muqdisho Cabdisalaam Sheekh Xasan Xiise. Ustaad Maxamed Cusmaan Niyog oo ka mid ah wariyaasha rugcadaaga ah isla markaana soo saaray saxafiyiin badan oo Soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay tacadiyadii dhacay sanadkii hore iyo sida loogu baahan yahay in loo ilaaliyo xaqqa iyo dhiigga suxufiga. sida xiriiryaha warqadda uu ku akhrinayaba waxa jiray dilal tacadigu waxa kamid ah dilka kamid ah sidoo kale waxa qayb kamid ah waxa ka ah in wariyaha dhaawac loo geysto sidoo kale waxa kamid ah in wariye la xiro تعدي waxaa kaloo kamid ah in wariyuhu xuquuqda asaasiga ee dhinaca saxaafadda uu waayo marka tacadiyada jira guud ahaan ee waddanka ka jira waan cambaareynaa sanadka 2011 murugo nagu reebay. sidoo kale waxaa iyaguna hadallo qiiro leh ka soo jeediyay kulanka saxafiyiin fara badan oo ay ka mid yihiin Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu, Nimco Xasan Cabdi, Jawaahir Nageeye iyo Xamdi Xiis oo dhammaantood si isku mid ah u tilmaamay sida ay muhiim u tahay in looga hortago tacadiyada loo geysanayo saxaafadda iyo waliba saxafiyiinta iyo waxa asal ahaan dhaliyay ama keenay tacadiyadaas. kulanka maanta ujeedadiisu ahayd inaan xusno ama aan waxa la yiraahdaa diiwaanka gelino dhibaatadii saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo saxaafadduba ay la kulantay sanadkii tagay isla markaana aan baaq u dirno dhinacyada ay qusayso in tacdiyada sanadkii hore saxaafadda Soomaaliya loo geystay ay ka sii yaraadaan sanadkan maanta bilowga ah 2012 waxaan codsanaynaa in la dhameeyo impunity-ga ama dambiyada aan la isku ciqaabin. waxaan rabnaa in la helo dadkii ka dambeeyay ninkaas ay qirtaan dilkiisa. waxaan rabnaa qofkii dilay ciddii soo dirtay inaan ogaano si aan haddana u helno iftiin kale oo ah 20kii iyo 30 ka horreysay ciddi dishay iyo qaabka ay u dhinteen. iyadoo taasi ay jirto haddana saxaafadda waxaa looga baahan yahay in ugu dheer ixtiraamto mas'uuliyadda saaran. waxaa jirto kaliya wariye haddii dib loo geysto in laga hadlayo kaliya wariyada ayaa dib loo geystay. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in wariyahan qodiisa uu dhibaato u geysto. ma jirto ilaa iminka suxufiyiin ka hadashay maxaan geysana anagoo dhibaataa. waxaa laga hadlayo kaliya waxaa jirta suxufi ayaa dhibaato loo geystay meel hebla lagu dilay. suxufigu ma la soo weydiiyey maxaa sababta loo dilay maxay tahay. marka xigta waxaan u istaagay inaan u tacsiyeeyo dhammaan intii aan u murugeynayno maantay oo ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee laga geeriyootay kuwaas oo tacdiin kala duwan loo geystay iyagoo ku guda jira howlahooda shaqo. saxafiyiinta ugu dambeeyay Xiis ayaan u istaagay inaan u tacsiyeeyo. runtii sanad kasta ama kowdiisa ama dhamaadkiisa ama dhaxbartamihiisaba wariyaasha Soomaaliyeed dib waa loo geystaa. sanad aan ka soo qayb galin inta halkan joogana ma leh. sanad oosan igu reebin dhibaato ama tiiraayana ma leh. gabagabadii kulanka ay saxafiyiintii ka soo qayb galay munaasabadan waxa ay doorteen Ustaad Maxamed Cusmaan Niyog inuu si ku meel gaar ah u hogaamiyo maamulka ururka wariyaasha qurba joogta Soomaaliyeed ee SAJAS maadaama ay waddanka Kenya ka tageen madaxdii ururka. Ustaad Niyog iyo guddi ka kooban 7 xubnood ayaa loo doortay in si ku meel gaar ah u sii wadaan hawsha ururka maadaama maamulkii hore uu burburay gabi ahaanba isla markaana xilkii laga qaaday Fuaad Maxamed Cilmi oo ah gudoomiyihii golaha dhexe ururka. guddigan ayaa maamulka ururka wariyaasha qurba joogta Soomaaliyeed sii wadi doona 2 bil ee soo socota intii si wada jir ah wariyaashu u soo dooranayaan maamul cusub oo uu hogaamiyo horumar iyo midnimo wariyaasha qurba joogta Soomaaliyeed.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idinkaga mahadcelinayaa micnaha anigoon soo sharaxin oo aan dhihin waxaan doonayaa inaan gudoomiye ka noqdo guddiga wariyaasha dibadjoogga ah sida niyad samida leh walaaltinimada leh soomaalinimada leh aad i doorateen muddadan xilkaasi hayana insha allahu waxaan geed gaaban iyo mid dheerba u fuuli doonaa si aan wariye kasta oo soomaaliyeed aan u heli lahayn inta guddigaas u jiro ay wiilasha iyo gabdhaha soomaalida ee wariyaha ay wala jiraan marka waxaan rajaynayaa wariyaasha soomaaliyeed meel kasta joogaan inay fikirkaas nagu taageeraan intaynan maanta joogtana qof kasta mas-uuliyadda ka saaran inuu ka shaqeeyo sida wariye kasta oo soomaaliyeed oo dibad jooga ugu noolaan lahaa si nabada una heli lahaa horumar iyo wanaag kasta oo qof kasta wariye ah ee dunida ku nool uu haysto muddada 11 sano ka badan yaan saxaafadda ku soo jiray saxaafaddana igama ahayn inaan daaqadda ka soo galay waa midaan bartay waan jaamacad iyo kolab kasta tegay waayo-aragnimadayda iyo aqoontayda waxaan ugu adeegi doonaa wariyaasha Soomaaliyeed aad ururka wariyaasha qurbajoogta Soomaaliyeed ee SAJAS ayaa hoggaan la'aan iyo maamul la'aan ahaatan iyo wixii ka dambeeyay markii wadanka Kenya ay ka dhoofeen Maxamed Cabdullaahi Aadan CD iyo Cabdisataar Daahir Sabriye oo ahaa labadii nin ee isaga kala dambeeyay hoggaanka ururka iminkana ku kala sugan wadamada Canada iyo Soomaaliya isku soo wada duubo kulankii wariyaasha qurbajoogta Soomaaliyeed ee looga hadlayay tacadiyadii saxaafadda ee sanadkii tagay ayay wariyaashu si guud tacsi ugu direen dhammaan intii ay waxyeello ka soo gaartay sanadkii hore waxayna u rajeeyeen sanadka cusub inuusan noqon mid lagu waxyeeleeyo saxafiyiinta Ibrahim Gedo Awaale Super Bibo S24 TV Nairobi.